የዓለም አቀፍ የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪ ቡድን ወደ ኢትዮጵያ በሽፋን እንዲገባ የተደረገ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር ዋለ። sirdoonka Ethiopia ayaa qabtay 2 kuntener oo ku jireen hub sharci darro lagu soo gelinayay dalka Ethiopia. hubkaas oo la sheegay inuu soo maray dalka Djibouti sida ay sheegtay warbaahinta xukuumadda Ethiopia EBC. hubkan ayaa asal ahaan ka yimid dekadda Mersin ee dalka Turkiga. waxaana markii dambe loo soo raray dhanka dekadda Djibouti halkaas oo si qarsoodi ah loogu kaydinayay in ka badan 5 bilood kadibna waxa si qarsoodi ah loo geliyay Ethiopia sida laga soo xigtay waaxda sirdoonka iyo amniga Ethiopia ee la yiraahdo NISS. warbaahinta Ethiopia ayaa sidoo kale sheegtay in 501 sanduuq iyo in ka badan 18,000 oo qoryaha gacanta lagu qaata oo Turkiga lagu soo sameeyay ay dawladda Ethiopia ay gacanta ku dhigtay. waxaa sidoo kale warkan lagu sheegay in la qabtay 229 sanduuq oo ay ku jiraan waxyaabo elektarooniga oo loogu talagalay in loo adeegsado in lagu daboolo waxyaabahan sida qarsoodida ah dalka Ethiopia loo soo gelinayay. waaxda sirdoonka iyo amniga Ethiopia NISS ayaa sheegtay inay samaysay dabagal muhiim ah muddooyinkii u dambeeyay tan iyo markii ay warkan heshay. waxaana ay bilowday howlgal gaar ah oo lagu ogaanayo cidda waday iyo dhinacyada hubkan qarsoodiga ah gacan weyn ku lahaa, iyadoo ay sheegeen sirdoonku inay raadraac lagu sameeyay shabakadaha sida qarsoodiga u soo geliyay dalka Ethiopia kuwooda ku sugan Ethiopia iyo kuwooda ku sugan meelo ka baxsan Ethiopia. waxaa warbaahinta Ethiopia sidoo kale ay sheegtay in la qabtay ilaa 24 qof oo lagu tuhmayo inay iyagu qayb ka ahaayeen hubkan qarsoodiga ah soo gelistiisa. hay'adda sirdoonka Ethiopia waxay sidoo kale sheegtay in 7 ka mid ah dadkaas ku lugta lahaa soo gelinta hubkan Ethiopia ay ka soo jeedaan dalal kala duwan. waxayna sheegeen inay la shaqaynayaan sirdoonada iyo hay'adaha kala duwan ay warar isdhaafsan doonaan dalalka wadamada Turkiga, Suudaan, Liibiya, Djibouti iyo Mareykanka. hay'adda sirdoonka Ethiopia sidoo kale waxay sheegtay in hubkan lala damacsanaa in rabshado looga abuuro qaybaha kala duwan ee dalka iyo in khasaaro weyn u geysan lahaa haddii hubkan aan la qaban lahayn.